بالله حيلتها واحد dunida ka dhaca waa kala nooc dadka bad waxay iska jecel yihiin wixii meel farka ka taagaba in laga daba taago wax saxana ilama muuqato wax saxahay waxa weeyaan islaamka wax kamid inaan la qarin islaamku inuu noqdo cidii rumaynaysaana cambayina ay u rumeeyaan cidii ka gaaloobaysaana cambayina ay uga gaaloobaan hadday mushkiladii timaado oo nin caalim oo la garanaya uu ka hadlay kama laazimayso in dhammaantood culimada kale oo dhamina ka hadlaan مثلا مسألة تمي شبلي بها هضلي محمود انت كلا هدا اسكا مصناته وحبش يقميسو وهي مسألة دي حجدي اوك قصب ما هين دمان توضي مدحككو أصلك وحويا وين دادكان لردسوه ومحال لقردسيا بني آدم كوين موازين لسيو ميزان وحق يا باطل كوكوكا لقرته ولبا قضيادات باكلا جرا شبهada radinteeda iyo xaqa garashadiisa waxa horeeya xaqa garashadiisa qofku haduu miisaan u haysto maxaa baatila maxa xaqa uu ku kala garan karo waa wax fudud ay shubha timaada uu ka qanci kara hadii si aanu haysanin muwazinti rasmiga ahayd de shubhaadku maalin walba kunba soo baxa shayaatiintu maalin walba inta soo cusub ay alifaan shubha uun lama wadayo warkeed waxa asalo culimada inay diinta bayaaniyaan dadkana u dhigaan waana isleeyahay in badan oo kamida waa la qabtaa wax laga gaabiyo hadii jirtana in la isku booriyo weeyaan wallahu a'lam wuxuu leeyahay qofkan waxaan ahaa qof labadiisi waalid caasi ku ah intay dhinteen kadib baan waxaan dareemay cuqubadii maxaa ila gudboon hadda cuqubadii hadii kugu dhacday waatin hadda ka warramaynay ni Soomaaliya yimid ma muddo ka soo wareegtay wuxuu weerinayo nin afxun baan ahaan jiray oo waalidkay ku afceliya dhalinyarana ahaa buu waagaas Ilaahay wuxuu qadaray buu yiri afkaygii inuu uray buu yiri afkii baa ii uray buu su'aashii weydiinay waxay tahay masaajida markaan imaadoon dadka la tukanayo dadkii sidii ruux basal cunay oo kale agtayda ma istaagi karaan si kasta da waxyaalaha udgiya xataa isticmaalo afkii waa soo uraya sheekhu maxaan sameeyay jamaacadkii ma isaga taga asagu markaa wuxuu rumaysan yahay waalidku ku afcelin jiray ku af adkaaba laga soo gaaray oo afkani la uray marka waa amthilada waalidka cuqubadiisu ma daahdo sida nabiga hore u tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxay markaa u baahan tahay inaad Ilaahay u toobad keento dambi dhaaf weydiisato marka labaadna waalidkaan nool haduu nool yahay inaad cafi weydiisato haday dhinteenna sidaan hadda tilmaanay inaad u dadaasho u sadaqayso xajido umrayso sadaqa u bixiso u ducayso wahaakada yani dadkii ehelkii dadka isjeclaan jireen xiriiriso waalid dhintay sidii baari loogu noqon lahaa tan soo tilmaanay weeye taas lagaaga baahan yahay haday nool yihiinna waa inaad lugaha qabsato oo gundaha qabsato oo ay ku cafiyaan oo ku saamaxaan naam waa mas'alo fiqi ah marka baaci shirabay ku saabsan tahay waxaan ka hormarinaynaa hadii su'aalo mawduucana ku saabsan hadii jiraan naam fadlan shariicada islaamiga ahi kow horta sharciga islaamiga markaynu dhaana sharca la dabaqay macnaheedu ma aha jinaayaadka iska badba waxay u haystaan ahkaamil jinaayaat shanafara hadii la dabaqona in islaamkii la dabaqay hadaan la dabaqina in islaamkii laga tagay islaamnimadu waa ballaaranta islaamka oo dhan aan qaadan marka hore waa mid marka ay timaado ahkaamta iyo xaq u leh inay dabaqdo de maamulka u leh hadii kale aynu dhaano qof waliba ha dabaqo ninba ninka ku xiga haduu intuu gacanta ka jiro yiraahdo tuugbu aha socon mayso wuxuu u baahan yahay nidaam sharci iyo maxkamad loo ijraa'aat loo qofkan isdifaaci karo xuquuqdiisa uu heli karo sharci lagu xukumi karo taana waa system inuu jiro xukunka marka lagu furiyo inaan qaadiga isna madaxa laga goynaynin dawladda iyo system taay wax kana
dantan mid iska soo qabato tiraada qisaas baan ku fuliyay adna reerkooda ay kugu fuliyaan mid kale oo baatila dee waxba yana socon mayso idan ahkaam markay timaado maamulo bulsho ka dhaxaysa dee waa wixii laga rabay inay dawladda iyo system ku fuliyaan maamulkay u taala maamulada qaarna waaba iska daciif oo umalayn maayo xuduudaaye waxyaabo ka fudud baa looga taaglaayay fuliya midna ogsoonow tuulo yaroo gaari dunidan islaam ma fulin karto daan caalamul islaam oo dhammi bislaanin inta ugu badan isku xidhmin cunaqabatayn dibad ka timaadiya dagaal dibad ka yimaadaba aan iska difaaci karin waxba sheegi mayso intaad tuulo qabsato 5 qof gacanta aad gooysid dabeetana dawladda ku qabsato kala gaala ahi waxba xukum fulintaasi ma aha masaakiintum baad meel kale ka sii toortay marka asalku wuxuu yahay waa in la helaa systemkii sharcigan difaaci lahaa bilyan iyo dheeraadkan muslimka ee dunida ku nool waa in kitaabkooda difaaci karaan wallahu a'lam su'aasha kale xigta wuxuu leeyahay waa qof dumar rajaynaya tahay zawjkaygu waa nin aad u mucaamalo xun labadayda waalid waliba khaasatan hab dhaqankooda wuxuuna amrayaan ayaga labadii waalid inaan zawjkan iskaga fogaado on maartay aan kala tagno qofkii dumarka maxay arrinka sameynaysaa waalidka ma amray waalidku amray meesha waxa iimaanaysa mas'ala la yiraahdo xaaska xaqan ninkeeda iyo xaqa waalidka keeba weyn hadday isqabtaan oo iswaafaqi waayaan oo ay noqoto qasab in midkood la ilaaliyo keeba mudnaanta leh axaadiista nabiga waxaa laga qaadanayaa xaqa ninka ayaa mudnaanta leh markay labada xaq isku dhacaan masaalix kala la fiirinayaa sidaas daraadeed waa inay isku daydo gurigeedii iyo ninkeeda iyo ilmaheeda inaysan dumin xuquuqdii ninkana gudato isla markaana waalidiintii inta tabarteeda ah inay baari u noqoto inay iswaafajiso waa inay isku daydo ninkana sii horan tilmaanay weeye waa nooc runtii aan fiicnayn oo aad u xun in aad gaadhsiiso xaaskaaga heer ay laba khiyaar ay hor yimaadaan ma waalidkaaga aad u xilataa mise ninkaaga aad u xilataa adaa loo baahan yahay adaa odayka reerki saan tilmaanayba ducada xaaskaagu ay hesho gurigaaga ku barakoobay waalidkan laga ducaysanayo xaaskii iyo gurigii buu saameyn ilmihii ay dhashay bay ducadu gaadhaysaa wax adigiiba dani kuugu jirto inaad gabadha ku cadaadiso sax maaha bal waalidiinta xaaska waxaa loo baahan yahay inaad uga danqato sidaad waalidka uga danqanayso kale oo aad noqoto ruux xis iyo dareen leh naam bismillah ninkan su'aal buu ku soo qoray ingiriisi does a Muslim allow to attend non-Muslim burial qof muslima ma ka qayb gali karaa qof aan muslim ahayn la aasayo jinaasa caadiya oo haddaan wax sharciga khilaafsanay aanu jirin dhib uma arko جزاك الله خير سؤال كلا كسو حكتا وحولها قفكا نبينا عليه الصلاة والسلام والدك ما أشفع عقادها يا قيامة أما هو يدي أما لبدي والد با ما أشفع عقادها يا قيامة في صحيح مسلم وحكوية له كتابك الله بعد أحاديث وقوين بخاري باكوة مسلم بالله صحيح مسلم كوحكوية له النبي قال صلوات ربي وسلام عليه أسوى صعوتاء oo Makka iyo Madiina dhaxdooda jidka haya qabriga hooyadii meeshaas ku yaala jidkii uu hayay saxaabadu la socday waa leexday nabiga sallallahu alayhi wasallam qabrigii buu ku leexday qabrigii markuu ku leexday oo dul tagay nabigu waa ooyay sallallahu alayhi wasallam waa hooyadii qabrigeeda waa ooyay nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ooyay kadibna saxaabadii la socotayna waa ka oohiyay way la ooyeen markay arkeen nabiga ooyay sallallahu alayhi wasallam
markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi rabbigay baa waxaan weydiistay inaan qabriga hooyaday siyaartoon booqdo waa ii ogolaaday buu yidhi waxaan weydiistay inaan u duceeyo inuu ilaahay u dambi dhaafo waa ii diiday buu yidhi halkaa waxaa ku soo degtay aayadda qur-aanka ee rabbi leeyahay ma kaana linnabiyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نبي يضد مؤمنين منا وما بنانا إن أي ضد قالأ وقال لما قلت انتي إن إلهي دم بداف أوي ديان أو إلهي أدم بداف دهان نبينا وما بنانا عدك لجور كيس إسكبدان markii loo diiday nabiga hooyadii inuu ilaahay u dambi dhaaf yiraahdo markaasuu nabigu ooyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi naxdin yaani danqasho uu hooyadii u danqanayo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka rabbi wuxuu ku yiri maya ana waxa jira waxyaalo masaa'il waxa jirta aan galin baa jirta ma gasho ruuxan maradu gaalnimo ku dhinto ya ilaahu nabi dhalo nabi mu aaba u ahaado nabi hooyadii mu noqdo marba hadduu gaalnimo ku dhinto khalaas nabigeena keliyana ma aha salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nabi ibraahim khaliilur rahmaan anbiyada nabi maxamed baa ugu fadli badan nabi ibraahim baa ku xiga nabi ibraahim aabihi aazar ya soo quraanku ma sheegin inuu gaalnimo ku dhintay nabi ibraahim waxa lagu yiri aabaha ilaahay dambi dhaaf uma weydiin kartid Soomaaliyeed ballanqaad hore uu siiyeyna quraanku waa ka hadlay maalinta qiyaamadana waxa la keeni doonaa aabihi oo dhurwaa inta loo eekaysiiyay baashi ahayay miyaah inta badaxay minjaha la qabtaa naarta lagu tuuraya wal ciyaadu billah wa nabiyullaahi ibraahim aabihi laana gaalnimo ku dhintay aazar quraanka sheegay nabi nuux wiilkiisi aaway يا سورة الهود لقى مشاكل إني بيه قادين وقال لما وكلنت والنبي نوح مركو ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ربي ويل كي وإهل كي يجيبوا كم ذا بلن قاد نواد سيسي بلن تاذون حقوي سوى وجرا ربي مركو ويدي وحلقوا يريد إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح بالي wiilka waa dashay laakiin ehelkaagi ballanqaadka aan ku siinay kamid ma maxay leeyahay dhaqan xun la yimid waa gaalnimo la yimid raalli aw balay Soomaali marka waxa weeye nabi baa dhalay iyo nabi bay isdaleen iyo nabi baa maartay aabba uu ahaa iyo nabi baa hooyo uu ahayd ilaahay warka ma yaqaan warkaasi wuxuu socon karaa markii mabda iimaanka la isugu yimaado wada rumeeyaan Soomaali markay wada rumeeyaan oo iimaan la helo ama gaalnimo hadii lagu dhinto bas waay nabi luut iyo nabi nuux xasaskoodii soo quraanka warramay ya wadaraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuuhin ya wa imra'ata luut كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين لما النبي باقبي فخانتهما قالي نقدين فلم يغني عنهما من الله شيء وحويروا روايه نبي نوح يا نبي لوط labadoodii xaas wax waa u tari waayeen naar kama badbaadin kara waqila adkhul an-nar ma'a ad-dakhilin naarta galali labadii xaas marka quraanka wuxuu inoo sheegay aabe nabi dhalay oo la cadaabay wiil nabi dhalay oo la cadaabay xaasas nabi qabeen oo la cadaabay sooma hadii marka nabigeenu inoo sheego hooyadii in la yiri ilaahay dambi dhaaf uma weydiin kartid ما هنا نراهنا من نبي محمد يا ور من نبي محمد الله أكتيسا وكوين لكن واحد شرته وحيالا أن اسبدلين باكري الله أكتيسا يلا الله ابن مرنا أنقلي كريم لقينا الشفيعي كريم لقينا الشفيعي كريم مسألة هذا قال لي ما تماضو هي الشرك اللي قلت أنت إيمان الآن ما قليسه مركز إله أكتيس تبارك وتعالى وأساسه إله يحكم أيوه استثناءنا ماله نار تروح قلي وأنا كواريا والله أعلم دان كورودين مقشين السؤال ninka walaalka uu weydiiyay taqriiban waxa silada waxay xiriir la leedahay ama calaaqo la leedahay mowduuc sheekh uu ka hadlayay wuxuu yiri tabliiqa
jamaacada tabliiq la yiraahdo maxaa masaajidda in ay ka hadlaan maxaa loogu diiday marka sheekh Mustafa fadl annagu kullaytaba masaajidkeenna dad intay noo yimaadeen aan u diidnay ma jiro sheekh markuu ka hadlana kelimad baan raacsan doonaa insha Allah taala fadal sheekh waxaan u malaynayaa horta wixii dee maamulka ku saabsan in maamulada masaajidda la weydiiyaa ma ahayd hadday jirto maamulo masaajida u diidan qofku hadduu diin sheegayo xaqna uu sheegayo in loo diida maaha qofka isna raba inuu wax sheegaa waa inuu iska hubiyaa waxa uu sheegaya inay diinta ka mid tahay maalan xadiis baad sheegaysaa hadday nebiga caynkaa yidhi mana odhanin waa ceeb intaad dadka is hortaagto nebi maxamed waxaanu odhanin inaad tidhaahdo calayhi salaatu wasalaam nebigaa waxaa yidhi idan hadduu qofku waxa uu sheegayo wuxuu iska soo hubiyey ay tay مثلا تبليغات sheegtay haday riyaad saalixiinka ahadiista ku qoran sheegaan quraanna sheegaan dadkana ilaahay ka baqay yiraahdaan wax loogu diida garan maayaanu de ahadiis sax ay sheegaan laazim ma qofka wax sheegaya inuu wax walba yaqaano laakiin waxa laazima waxa uu sheegaya wuxuu garanayo aakhiro ku badbaadaya inay waxaanad garanaynuuna isku sheegi oo intaad riya ka bilowdo iyo meelaha kan waxaan jirin ha sheegin laakiin waxaad sheegtaa maxay wax diina oo sax ah hadaad sheegayso in lagu diido maaha wallahu a'lam bismillah kusina sheekh sugaayr hortana waxaan idin sheegayaa sheekh Abdul Aziz bin Baz kitaab la yiraahdo at-tabliigh ma lahum wa ma alayhim ayuu wuxuu sameeyay muqaddima aniga akhriyay kitaabkaana hayn jir la kad meel uga aadama qan waa ga dhumay sheekha marka wuxuu yiri nimankaas tabliiq la yiraahdo wixii ay ku toosan yihiin ha laga tacaawuno waxay ku qaldan yihiin ha loo naseexeeyo masaajidana ayaan loo diidin wajida waxay ku qaldan yihiin ha loo naseexeeyo wixii ay ku asiibaanna ha laga tacaawuno ha lagu kaalmeeyo wajida marka tabliiqu naftiisana waa tafaa'umad waa kala duwan yahay nimankan tabliiqu hadda ka yimaada Urdun iyo Falastiin iyo Khaliijka meelaha qaar kood Sacuudiga iyo Kuwait iyo niman tabliiqa oo culumaa oo runtii ma aragtay xaq aqoonta ay fiican tahay baa noo yimaada marka qaar kood marka masaajid bay yaqaanaan oo aadaan annaga nooma yimaadaan nama soo maraan laakiin tabliiq runtii waxa jir niman xaq aqoonta runtii ma aragtay khuraafa iyo waxyaalo badan iyo xadiis ma garanaysa daciifa iyo khaasatan rag Asiaanka oo Asia ka imaanay India Bangladesh iyo Pakistan kuwa naftooda hadii wax wanaagsan sheegayaan annagu waxa waaye fatwada Sheekh bin Baz baan qaadanaynaa marka runtii xaalad dadka muslimiinta ay marayaan dadka muslimiinta maanta waa in la jamciyaa waa in la aruuriyaa mawjida dadka muslimiinta waa in la mideeyaa wax badan bay runtii heshiis ku yihiin wax isku khilaafsan wax yar waa نعم فضل شيخ su'aasha wuxuu leeyahay qisadii Jurayj hooyadii markay u dhawaaqday salaad buu ku jiray Soomaa kadib markuu salaada gudaheedii hooyadii la hadli waayay bay habartay marka salaada anagu ku jirna haday maamadu noo dhawaaqdo ma heebaan dhahayno su'aashu waa saas jawaabtu waxa weeye salaadu waa laba salaadu haday waajib tahay maya salaadu haday waajib tahay la hadli meysida salaada dhamaysan salaada aad ku jirta haday sunno tahay oo salaad sunna hooyo ku yeedho waa inaad heed tiraahdo salaadana ka baxdo ma la faham Jurayj marka wuxuu tukanayay salaad sunna abu tukanayay سازرادت بالإمام النووي عليه رحمة الله صحيح مسلم كأبوابته سمي مركو بابين معناها سو بابين
marka wax weeyaan salaada sunnada ah waxa ka mudan waalidka daacadiisa laana daacada waalidku waa waajib salaada aad ku jirtana waa sunno iyo waajibna waajib ah horeeya wallahu a'lam sheekha su'aasha uu yiri warka murtidiisa waxa weeye kitaabkii Allah subhanahu wa ta'ala soo dejiyay waa yaala waa kan masaajidka meel kasta saaran dadka muslimiinta maxaa ku dhacay kitaabkii maxay ugu dhaqmi laayeen u tabaqi laayeen waanaga sheekha weydiinaya fadlan bismillah su'aashii hore wali haddaan in ku daro xaqa iyo qofku iskuma xidhna gaalku hadduu xaq sheego waa la qaadanaya qof muslima ka kaale gaalku hadduu xaqa sheego waa la qaadanaya xadiiskii Abu Hurayra shaytaankii ama jinkii xadayay sadaqa loo dhiibay Abu Hurayra nabigu u dhiibay deetana habeenkii baa mid jini u yimaadayo uu xadaa Abu Hurayra qabtay isagoo mala soo tashakulayde waa qabtay wuxuu caruur yaban ka imid dad baahan oo kaas iska cafi oo iska sii daay ilaahay baa nabi Muhammad soo waxyooday alayhi salatu wasalaam deetana subaxii buu nabigu wuxuu weydiiyay Abu Hurayra warninkii xalayta muxuu ku yiri wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisiiyo waxbuu xadayo markan qabtayna waan baahan iska kaydaa buu dhawaan cafi baan buu ku sheegay uu soo noqonayaa buu nabigu ku yiri Abu Hurayra habeenkii dambe waa u diyaar garoobay haddana kiyo dhusdhuslaayay habeenkii dambe waa qabtay sidii buu haddana u calaacala war iska kaysiidaa buu yiri dad baahan iyo caynkan baan ka imo jilicsanay waa iska sii daayay Abu Hurayra waa naxariista subaxii ayuu yimi saxaabada naxariistooda aad arkaysaa tuug weeyaan ka uu sii daydaynaya ayuu u yimi wuxuu nabigu ku yiri xalayta muxuu yiri xalayna saas igu yiri buu yiri nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri been buu ku sheegay uu soo noqon doona habeen saddexaadkii buu qabtay habeen saddexaadkii markuu qabtay ayuu yiri siida war waadigi beenta akhrinayay caawa cilman ku baraya qaada buu yiri siida sheeg buu yiri wuxuu ayad kursiga haddaad habeenkii akhrisato shaydaan iyo jibanba ku soo dhawaan maaya waxoogaa cilmiga abu sheegay waa shaydaankii waxadayay deetana uu sii daayay subaxii buu nabigu ku yiri alayhi salatu wasalaam ma faala saahibuk muxuu sameeyay saaxibka muxuu yeelay wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisa wuxuu xalay ta sheegay war cilman ku baraya sii daa buu yiri ii sheeg baan idho intaasoo ii sheegay kursiga haddaad akhrido jibanka ayaa waxaas waxba ka qaadmaya sadaqaka wa huwa kadhub nabigu yiri rumbu ku sheegay isagoo beenaala idan hadii shaydaan cilmi laga qaatay cidi kale cilmi sheegaysa haduu cilmigu sax yahay meeshu doonaa ka yimaado wala qaadanaya cilmigu haduu sax yahay oo aliya rasuulu ku dhaweynayo wala qaadanaya sheekhan su'aashiisa waxay ahayd hadii islaamnimadii la googoynayo muslimiintu xaqay ku maqan tahay dearmay muslimiintu ba qayb ka yihiin kuwa googoynaya ama maamuladooda ha noqdaan ama inaga iyo qabaa'ilkeena ha noqotee inagu islaamnimo ma ku wada dhaqannaa haddaynu daacad noqono islaamnimada ku dhaqanno wuu dhowrsoomaya kitaabkani cid difaacdana uu helaya laakiin haddii aynan inagu isku dhaqaynin aynu barako u haysanno marka la dhintaa un baynu wadaadka u yeedhnaa iyo kitaabka quraanka in laga barakaysto ficlan baraka weeye laakiin marka la rabo in la ismaamulo isaga waa la ilaabaa dadkii difaaci lahaa waa muslimiinta hadday muslimiintu iimaankoodu uu xoogoobana ilaahayna wuu u gargaarayana kitaabkan way difaaci haddii se iimaanku uu sii daciifayo oo qofkuba naftiisa iyo shahwaadkiisa uu ka xoog badnaan kari waayo waa adagtay inuu diin kalena difaaco inta aan ogahay wallahu a'lam bismillah su'aashan ayadu waa sheekh waa English wuxuu leeyahay University of Islam means what عالمية الإسلام
caalamiyat alislaam macnaheedu muxuu yahay ana shumuuliyadii way taqriiban saas dee intii aan hadlayo dhan haddaad i fahmi kari weyday saacad talow 5 minute ma kugu fahamsiin karayaa su-aashu waa taas islaamku waa universal macnaheedu wax weeyaan kow basharkoo dhan baa loo soo dejiyey intaynu masaajidka la gallo haddaynu idhaahno yaa ahlal kitaabi quulu ahlu kitaab halkan ma joogo ahlu kitaabka xaggaasay joogaan waa inaynu iyaga ku soo nidhaahnaa qur-aanka imisa ahlu kitaab la hadlaya intee in leeg mise aayadood baa yaa ahlul kitaabi la leeyahy ma innagaa isku akhrina mise ahlu kitaabka inuu sheegnaa kuwii ilaahay la hadlayay miyaynu gaadhsiinay mise innagaa intaynu masaajidka hoosta ka xidhanno isku nidhaahna yaa ahlal kitaabi baa ilaahay yidhi idan kitaabka qur-aani albashar alinsaan meeshuu doonaba ha jooga baa loo soo dejiyey waxaanay saaran tahay mas-uuliyaddu inay gaadhsiiyaan dadka muslimiinta ah kaasi waa mid waa universal dhankaa marka laga eego basharka iyo nawciyaadkiisa oo dhan jinsi gaari ma leh carabi ma leh ee waa ajnaasta bini aadamka oo dhan noocu doonaba ha noqdee marka laga eego xagga waqti gaara ma ahayn oo cahdigii nebi maxamed iyo wakhtigaana inuu sax ahaa iminkana aan la qaadan karaynin sax maaha ee waa inuu universal yahay ilaa qiyaami saaca in loogu talagalay inuu jiri karo ama uu noqon karo wax lagu dhaqmo oo lagu noolaado idan inaha iyo intii ka horraysay wixii aan sheegayba waxay tilmaamayaan in loogu talagalay caalamka dhammaantii lilcaalamiina nadiiran inuu noqdo ayaa loogu talagalay wallahu aclam su-aasha ugu dambaysa qofbaa wuxuu leey waan xanuunsanahay waxaan rabaa in lii duceeyo hooyada dhimatana in loo duceeyo intaasaan kusoo gabagabaynayna insha allahu tabaaraka wa tacaala baaraka allahu fiikum jazakum allah caafiyo amiin isaga iyo inta jiran baa allah caafiyo isaga iyo inta jiran baa allah caafiyo caafimaad degdeg allah siiyo waalidiinta iyo duqayda iyo inta dhibanba dhibaatada allah ka qaado inta dhimatayna allah u naxariisto ilaahayna tabaaraka wa tacaala haynugu anfaco waxaan maqalay هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله